waxaa abbaaro laga bilaabo 7 saac iyo 40 daqiiqo ilaa laga gaaro 8 saac la weeraray ama bangacmooyin lagu tuuray ilaa 7 saldhig ama 6 degmo gobolka Banaadir ka tirsan kuwaas oo lagu weeraray bangacmooyin. afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya oo halkan oo ah taliska booliiska degmada Hodan kula hadlay warbaahinta isla markaana ka warbixiyay weeraro ilaa 6 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir maanta ay ku soo qaadeen al-shabaab. afayeenku waxa uu sheegay weeraradaasi in marka laga reebo 4 qof oo rayid ah isla markaana dhaawac ay soo gaareen 3 ka midna carruur ay yihiin inaysan waxba gaarin meelihii la damacsanaa oo ay ka mid ahaayeen saldhigyada booliiska ee degmooyinka gobolka Banaadir. guud ahaan goob kastoo ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siino wixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ahaa wax boorisku qaris ah oo kooxihii nabadiidka ay doonayaan in ammaanka iyo xasiloonida ka jirta gobolka Banaadir ay ku fashiliyaan laakiin ay ahayd wax ay ka naxeen. waxaa abbaaro laga bilaabo 7 saac iyo 40 daqiiqo ilaa laga gaaro 8 saac la weeraray ama bangacmooyin lagu tuuray ilaa 7 saldhig ama 6 degmo gobolka Banaadir ka tirsan kuwaas oo lagu weeraray bangacmooyin balse goob fog oo laga soo tuuray awgeed aan bagaarin halkii loogu talagalay. waxaana gacanta lagu soo dhigay ilaa 5 dhagar qabe oo weli wata bambooyinkii ay tuureen kuwii ka soo haray. waxaana gacanta ku haya ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaana la waafajin doonaa waajibaadka qaranka uu ka lahaa in cid walba ee ka hortimaada nabadda qaranka la waafajiyo shuruucda u degsan qarankan. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bushaareeyo inay ku kalsooni qabaan ciidankooda booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska qaybta guud oo foojignaan dheeri ah ka muujiyay ragga dhagar qabiyaasha ahaa ee isku dayay inay gobolka Banaadir saldhigyadooda ku soo weeraraan bambooyinkii balse ay ku hingooween. waxaa ku dhaawacmay bambooyinkaas ay ku tuureen 6 degmo 4 qof oo rayid ah oo u badan carruur waliba 3 ka mid ay yihiin carruur aad u da'yar ay da'dooda u dhaxay 13 jir ilaa 10 jir. ummadda Soomaaliyeed wixii aan tusaynay qayb ka mid ah waa inay arkaan waxa loo socdaa inaysan ahayn askari booliis Soomaaliyeed ama military ah mise dawlad u shaqeeya waxa loo socda ay tahay nabadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo in la baneysto dhiigga ummadda. taasna waxaa hari habeen u taagan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo u dhaartay inay difaacaan bulshadoodii hari habeen dhedada iyo dhaxantana u taagan sidii looga nabadgelin lahaa kooxahaas nabadiidka ee caadaystay banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. haddaba cid walba oo ka tirsan nabadiidka waxaan u sheegaynaa waana kula joognaa waana ku jeednaa waana ku qaban doonaa insha Allah. waana mahadsantii. dhawaan ayay ahayd markii dhowr degmo oo ay ugu darneed degmada Kaxda ay al-shabaab soo weerareen isla markaana saldhigga degmada Kaxda ay saacado kooban la wareegeen al-shabaab. Ismaaciil Nabrisa telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.